waa mar kale iyo barnaamijkeeni khadar xogta dunida. Xalay ayaa madaxweynaha Mareykanka Biden waxa uu ku dhawaaqay cunaqabatayn ka dhana dalka Russia ka bacdi markii ay Russia ku dhawaaqday in ay aqoonsatay gobolada Lugansk iyo Donetsk. Arrinta uu kaga jawaabay Biden ayuu xalay shir jireed u qabtay xilligii dambe ayaa waxa uu sheegay inuu ku soo rogay cunaqabatayn isla markaana aysan bangiyada reer galbeedka iyo reer Yurub aysan la macaamili doonin. Waxa uu gabi ahaanba xidhay nidaamka isku xawlaadda lacagaha ee taasoo loo yaqaan money transfer-ka iyo nidaamka kala ganacsiga iyo wax kala iibsiga. Tallaabadan ayuu ku sheegay si loo ilaaliyo xorriyadda iyo madax-bannaanida reer Ukraine. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu ciidamo xoojin u diri doono gobolada kale oo ku dhow Russia ee ka mid ah NATO. Dhanka kalena waxaa soo baxayo magaalooyinka bari ee Ukraine qaybo ka mid ayaa noqonaya kuwa haawanayo. Magaalooyinkaas ay ka mid tahay magaalada Khartasik oo hoos tagto Donetsk ayaa gabi ahaanba wax bilaadan oo dhaqaaqa lagu arag ka bacdi markii ay dadka ka barakaceen meeshaasi. Dadka barakacaya waxa uu wacan colaadaha iyo jamhadaha oo ku soo dhawaaday iyo isla markaa ku dhawaaqitaankii oo Russia ku dhawaaqay inuu jamhuuriyadda madax-bannaan u magacaaban yahay. Waxaa lagu bilaabay masaafurin iyo tarxiil dadkii reer Ukraine asalkooda ahaa ee deganaa goboladaasi bari ayagoo aan loo kala aabasoocaynin. Dhanka kale waxaa jira dadkii laftigooda Russiaanka ka soo jeeday oo meeshaasi isaga qaxay sida colaadaha iyo dhibaatooyinka soo dhacayo. Magaalooyinka qayb ka mid ah ayaa waxaa laga dareemayaa sawaariikhda iyo madaaficida. Magaalooyinka gaar ahaan xuduudda Ukraine iyo Russia u dhaxaysa u dhow ayaa waxaa ku soo dhacayo madaaficida iyo artillery-da ayagoo si talantaal leh ugu soo dhacayo, kuwaasoo khasaare isugu geystay naf iyo maal geystay. Guryaha qayb ka mid ah iyo gaarsiiyay dhaawac. Ciidamada Ukraine ayaa difaacyo halkaasi ka adkaystay ayagoo sheegay inaysan dhanna u socon isla markaana ay ka difaaci doonaan faashiistaha Russia ee ku soo duulay dalkooda. Sidoo kale, kooxaha gooni-u-goosadka ayaa isku dayay in ay ku durkaan gobolada qayb ka mid ah ayagoo si aan arxan darro ah xagga madaaficida ugu yeelayo. Dadka rayidka iyo shacabka ayaa light-trigii iyo biyihii ka go'an yihiin isla markaana la soo wajahday xaalad aad u adag ee nololeed. Dhanka kalena, maqnaanshaha laydhka iyo biyaha la'aantii iyo dadka oo dhufaysyo ku jiro ayaa waxay sababtay in noloshu sii adkaanayso. Dhanka kale, kooxaha gooni-u-goosadka Russia ayaa waxay u muuqdaan inay isku sii ballaarinayaan deegaano tan iyo intii lagu dhawaaqay oo Russia aqoonsatay Donetsk iyo Lugansk, labada gobol. Ku dhawaad inta colaadaha ay bilowdeen kooxaha gooni-u-goosadka, dad lagu qiyaasay 13,000 oo qof ayaa ku dhintay. Madaaficida soo dhacaysay sawaariikhda ayaa xaaladda uga sii darayso.